maayir ku-xigeenka cusub waan soo dhawaynayaa maayirkana waan sii sabootayaa waxaan u ducaynayaa maayirka ugu ducaynaya maayirka ku-xigeenka cusub in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka ku asturo inuu ka yeelo mid ummaddu u siman tahay oo si hufan ugu adeega maayir ku-xigeenkii hore Maxamed Bedel Guuleed oo saaka inaga yar maqan hawlo shaqo awgeed isaga wuxuu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan si degmadu ugu soo shaqeeyay intii xilka uu hayay waxa ay dardaarmayaan wal isku duubni iyo wax wada qabsi idinoo gacmaha haysta inaad wada shaqeysaan soo kale xoogii fulinta dawladda hoose runtii Cabdinuur Maxamed Carab oo runtii qiimo badan oo isaguna deegaanka runtii aad uga shaqeeyay intuu joogay waxaan rajaynayaa inaad isku duubnaataan gacmaha is qabsataan horumarka la wada jeesto khayr baan idin rajaynayaa dhamaantiin anoo ku hadafka dhalinyarada iyo afka deegaanka maayir ku-xigeenka cusub xilka maanta la wareegaya Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay xilka u fudaydiyo xilka culus ee uu qaadayna in Ilaahay uu ku asturo in Ilaahay uga baryaynaa marka maayir ku-xigeenka cusub waynu ducaynaynaa Ilaahay xilka ku asturo maayir ku-xigeenkii hore xilka ka degayay Maxamed Bedel Guuleed sagara Ilaahay waxaynu uga baryaynaa muddadii uu soo shaqeynayay degmada uu soo shaqeynayay in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahayna meel khayr qabta aynu u weydiinana maayir ku-xigeenka cusubna waynu u ducaynaynaa Ilaahay xilka ku asturo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta kale waxaanu joognaa xil wareejintii loo kala wareejinayo xilka labada maayir ku-xigeen ee degmada Salaxley waxaan leeyahay maayirka ku-xigeenka cusub Ilaahay shaqada ha ku fududeeyo Ilaahay xilka ha ku fududeeyo kulli hawl baa taala meeshan xilku waa hawl qofkii dadka doonaya dadka wax u qabto runtii wax lagu farxaa xilku maaha waa warwarkeeda leedahay mas'uuliyad baa ku saaran waxaan doonayaa maayir ku-xigeen inta muddaxileedka kulli waa tii la sheegay muddo kordhinimo jirtay inta xilka inoo idin hadhay hadaatiin golaha deegaanka intii hore muran bay naga soo baxday in badan war maanta inta hadhay ummadda wax loo qabto muran halka ku soo afko wasaaradaha iyo dawladda dhexe iyo wixii loo lama garanaysan aynu ka doonino aynu kula xisaabtanno inagoo wada soconna wada jirna gacmaha haysana muran dambe iyo waxa iyo Salaxley baa murmaysadaas meesha ka baxdo gacmo wada jir bay shay kasta mirir ku gooyaan ayaa leeyahay wada jirku wax lagu qaban karaa waxa la inta taagshinidu leedahay wada taqaanaane taqwad iyo awood ma laha iyo turuqyo waaweyn dadaal bi fikirka ka tagtaa ma tawfiiq waxa la aborku intuu leeyahay wada arkaysan arjihayda uma qorto iyo uumiya kale eego iska wax qabsuu kaag leeyahay aborka yardunwada aragtay u dhisaa isagoo wada socda arjihayda uma qorto iyo uumiya kale eeg oo iska wax u qabso ayuu kaag leeyahay markay taa tahay halka waxa idin ka cad iskarabiyaayo macna laguma yeesho dadku maxaa la yiraahdaa dabagalka iyo kala dambeynta ayaa macna lagu yeeshaa qof walba wixiisa in lagu maamuuso ayaa macna lagu yeeshaa warniman yahow waxaan waa xilku waa ayaamo qofku ayaamu joogaya ninba maalin wuxuu lahaa waa sida kursiga raislaha oo kale raisluhu qofka raisluhu u xiraya inta loo xiray inuu fadhiyaa marka loo dhameeyo xagu qabtaa uu tagaa mid kale ma fadhiista xilkan maalinba kursiga Ilaahay qof buu keenaya ayaamu joogaya uu ka tagaya inta inuu ummadda u shaqeysay iyo in kala lagu eegaya ifiya akraba waa imtixaan warwa ayaame ummadda inta aynu xilka wayno waxaynu u qabanno muranka iyo waxaynu iska deyno Ilaahayna subhanahu wa ta'ala aynu xilka kaga cabsano inta aniga waxaygu waa uun magaranaysa dawaano inta hadii Ilaahay nagu anfaco waxbaan dadka u tari doona haday laakiin halkii muran ka bilowno waxaan runtii diidaynay intaasaan ku soo koobaya saaxiibkay Maxamed Bedel isagana waxaan leeyahay Ilaahay inta xilka haysa ku fudayo
imikana waa oday degmadiiya oo jooga uu shaqaynayaa nala shaqaynayaa meel muu qabanin inta kadib waxaan uga gudbayaa maanta waxaanu ku jirnaa xil wareejintii maayir ku-xigeenka degmada Salaxley waxaanu leenahay maayir ku-xigeen ilaahay xilka kugu asturo Salaxleyna joogid bay kaaga baahan tahay iyo xafiisko sida maayirku 5 subaxnimo u furo adiguna aad 6 u furto ay degmadu kaaga baahan tahay isqabs intii aynu ku jirnay mashquulka shaqo badan bay istaagtay runtii dadka meesha deganaa waxay u baahan yihiin loo shaqeeyo dardaarkeenu waxa weeye in ummaddu u shaqeyno oo shaqo hufan oo nadiif ah laga helo gacmaana isku qabsano horumarka dadku waxay ku celceliyaan dawladdeeni baa dhalatay war dawladda hadayna la shaqeyn ma dawlad baa inoo imanaysa waxa loo baahan yahay ragii xafiisyada ugu tagi lahaa ee codka shacabka gaarsiin lahaa madaxweynaha qaranka iyo wasiiradiisa kala duwan iyo hay'adaha horumarka maalin dhaweyd bariga aynu soo baxnay ee lagu soo dhaweeyay degmada ayaa intii kala wareegu socday baa hay'adda kan dhalayd ka samaysay bahadhamal dhaamkii baan maalin dhaweyd tagay sidii biyo uma gelin waxa la idinka baahay in gacanka u furtaan oo baasha hoos u dhigno dadka u adeegno iga dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu joognaa xafladda xil wareejinta maayirkii hore degmada Salaxley Maxamuud Bedel Guuleed iyo maayirka cusub ee la wareegaya Diibaan Cismaan Wadaadiyare ugu horreyn waxaan soo dhaweynaynaa markaa maayir ku-xigeenka cusub ee Diibaan Cismaan Wadaadiyare oo u leenahay xilka aad qaaday Ilaahay ha ku fududeeyo maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa oo hore bay nooga mid ahaa Diibaan Cismaan Yuusuf oo ka mid noqday fulinta dawladda hoose inta horeba dib u shaqeynayay wuxuu ahaa xildhibaan mudane gole deegaan oo la soo doortay Diibaan marka hore waxaan leeyahay Diibaan ku soo dhaw fulinta insha Allah waxaan rajeynayaa inaynu si fiican u wada shaqeyn doono sidoo kale waxaan sii sabooteynaa walaalkeen Maxamuud Bedel Guuleed oo isla muddo ka shaqeynayay ku shaqeynayay fulin kana shaqeynayay degmada intii aan soo wada shaqeynay waxaan leeyahay wixii aad u qabatay ummaddaada aad u mahadsan tahay kullee halkan hadal kale ma yaalo oo Diibaan u been maanta ku soo dhaweynaynay inuu shaqadii loo igmaday golaha deegaanka ku doorteen inaynu xafladan u qabanno sidoo kale gudiyadii joogtada ahaa oo iyagana golaha deegaanku kalfadhi ay isugu yimaadeen ku doorteen gudi fulineed waxaan jeedaa ay ku doorteen gudidii joogtada ahayd waxayna kala fadhiyay Aadan Cabdi sidoo kale Axmed Buraale Iimaan iyagana waxaan leeyahay shaqo badan baa idin taala Diibaanna waxaan leeyahay shaqo badan baa kugu taala xil baad qaaday xilkaasi kulli culays ku leeyahay waa dareemaysaa waana xil adag weeyaan nabadgelyadana waxaan ku baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliland iyo dadweynaha degmada Salaxley matalnaba inay nabadgelyada ilaaliyaan maadaama waddanka ictiraaf helay cadad fara badan baynu yeelanay waxaan noqonaynaa dhammaanteen ciidan qof waliba halku taagay buu ciidan ku yahay qof waliba halku taagay buu nabadgelyo ku ilaalinayaa waxaan nahay degmo ku taala degmo xuduudeeda marka mas'uuliyad ka ballaaran ayayna saaranka gudaha ku jira waayo wixii soo gudbaya innaga ayayna soo marayaan halkan waxaan uga mahad celinayaa taliyaha ciidanka degmada Salaxley ciidanka bilayska taliya Naasir oo runaantii aan hadhiyo habeenba ka fariisan ilaalinta nabadgelyada diye taliya ku-xigeenka degmada labadooduba runaantii waxay u hagar baxeen ilaalinta degmada maxay hayteen nabadgelyada oo ah rugka koobaad al-amn wal iimaan Cabdinuur baa halkan runaantii nagala yar dardaarmay xogayaha gabayga way ka yaqaanaa waxaan moodayay inay ahayd shiniduba ma laha awood iyo turuqyo waaweyn ha yeeshee iskaashi bay filkeed ku gaadhaa amase ku dhaaftaa gabaygii waa maalinay waxa Cabdiwaaxid haddaad gaashaanqaad qabto gaashaanqaad hoogeed ka hadlayso haddaad guutiyo guluf iyo ciidan aroosayso taladu yacni waa iskarabsi waa run waa mid xaqiiqa
mar walba waxaan noqon doonaa insha allahu tacaala fulinteedaasi kuwii wada tashada shaqo badanna wayna sugaysaa liibaan waxaan leeyahay halkan soo istaag insha allahu tacaala si aan maxay ahayd halkan ugu sameyno kala wareejinta insha allahu tacaala bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahad iskale marka xigta dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda aad baan mahad celinayaa haddii ilaahay badankeeda leeyahay horta inaan ummaddii u shaqayno ayaana laga yaqaana oonaa mar dambe isqabsanin fulintii iyo golaha deegaankuna anaa ka odayaho mar dambe isqabsan mayso